sahre khaliif maxamed oo ah gabar 21 sano jira ayaa kusoo baxday doorashada aqalka dowladda hoose ee magaalada Lova ee dalka Biljimka. Sahre waxa ay ku badisay codad gaaraya 800 oo cod doorashadii dhowaantan halkaasi ku qabsoontay. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed oo haatan baa garabkayga bidix fadhisa ayay ugu warantay khadka telefoonka iyadoo ku sugan isla magaaladaasi Lova. way ku faraxsanahay way fiican tahay inta Soomaalida hadda ku soo bateen ina caawin karo ku faraxsanahay. waayahay maxay kaaga dhigan tahay guushan adiga nafsadaada sideed ugu faraxsan tahay oo aad dadka wax ugu qaban kartaa? aad ugu faraxsanahay yaa waxa ku faraxsanahay ina almost 800 ina keenay oo ku wili oo ku faraxsanahay inay believe kareen. waa gartay dadka ku doortay ma Soomaaliba mase isku jir dadka u dhashay wadanka oo Belgium ah iyo Soomaali ayaa ku wada doortay? Soomaali way doorteen ilmaha kindergarten till high school isku jirnay primary isku jirnay way wada doorteen macamiyaasha aqaanay every kind of race ay doorteen. marka waxaad leedahay ilmihii iskuuleyda isla soo ahayn laga soo bilaabo yaryarka ka yar galaaska primada ilaa iyo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ilaa kuwa aad isla dhigateen ayaa ku doortay iyo macallimiintiba way wada doortay saaxiibayaasheeda iyo Soomaalida xataa inta magaalada degan. marka ma Soomaali ayay wada ahaayeen mase wadanka dadka u dhashaa ku jiro? dadka wadanka u dhashana ku jiro Marokana ku jiro national city kaleeta ku jiraan iyo Soomaali xataa ku jiraan. Soomaali kaliyood ma ahan. waa gartay marka jaaliyada Soomaalida maxaad jeceshahay inaad u qabato Sahroy? waxaa jeclahay waxbarna qabta hadda inta way ku soo barteen waa ku faraxsanahay Soomaali badan inta soo degan ina dad oo digay markasta arki karo waxbarna qabara wax kasta oo jeclaanahay my best I try to ina caawi karo. waa gartay urur sameysanaban hadee school furan waa Soomaali waxa soo caawi kara. adiga dalka Belgiumka ayaad ku dhalatay? ha waa gartay marka sideed Soomaaliya iyo u taqaanaa iyo waxa la xiriira Soomaalida? hooy aabahe madaxweyne markuu soo sharaxay waxaas waa maqli jiray politics waa jeclahay wadakeyga iyo xataa waa jeclahay ina mar arka waa rabaa ina u tagi kara halkaasna caawi karo. marka dalka inaad tagtid ood caawiso dadka waad rabtaa iyo siyaasadda inaad waa gartay bal marka waxaad iga warantaa marka dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee soo koraysa ee wadankaas ku dhaqan ee Soomaalida ah maxay tahay fariinta u diraysid? wax ku barto hadii wax bartaan se wadakooda caawin karaa hadii noqdo future-ka wadakeeno yaala ina ku noqona qofkas wadakiisa inuu dagro waxaa iskool marka ku jiray waxa arka Marokaayaasha Turkiga wadakooda noqonayn holiday aarayn biliyaal soo joogayn soo noqonay anakana ma sameyn karno dagaala ka dhaca waa laga cabsana wax yar ina anakana waran noqonaana oo holiday maybe aarikano qof haduurba degnaan karo. dowladaha hoose ayaa lagu doortay bal marka waxaad iiga warantaa Soomaalida dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalka Belgiumka waxyaabaha u tiri karta maadaama waalidka wadankaas ay soo galeen adigaba waad ku dhalatay Belgiumka laakiin markii waalidka ay la fiiriyo dabcan Soomaaliya ka imaadeen. safety la caawi lahaa safety and feeling welcome in the country hataa ina wax kasta oo systemsa u shaqeyso oo baranayin waxaas la caawi lahay like example wax little things anaka wada keeni the plastic iyo the garbage waa kala bixinaa. yaa ka caawiya heerkan inaad soo gaarto? hadda hooya si fiican uga caawisay laakiin ninka oo noqday mayor in the city waxyar ipushkayo dahay samee oo ku fiicnaanay and I believe in you udahay hadda alxamdulillah mayor noqday waa ku faraxsanahay. marka mayorka degmada aad joogtid ayaa adigana sidoo kale dhiirigelin kuu sameeyey? wuxuu dhahay samee ku fiican tahay iyo I believe in you udahay waa ku guuleysnay the election anina ma umaleynayna guuleysnaya. taasi waxay ahayd Sahra Khaliif Maxamed oo iyadu ku soo baxday
doorashada aqalka dowladda hoose ee magaalada Lova ee dalka Belgium oo dhowaantan qabsantay waxa ay khadka telefoonka ugu warramaysay Zahra Cabdi Axmed.